Somaliland oo ku taala gobolka Geeska Afrika waxay soo jiidanaysaa siyaasadda qaaradda madow si ay uga mid noqoto 54 dal ee looga aqoonsan yahay Afrika tii ugu dambeysay. 30 sano ayay daalaa dhacaysay waxayna soo gaadhay meeshii ay ka istaagi lahayd muddo kacaakuf ah oo ay ku soo jirtay doorashooyin xor ah iyo amni sugan waa raasamaalka kaydka u ah ee lagu majeerto walow aanay dowladda ictiraaf haysata ahayn. waxay ku gaaf wareegto dalalka awoodaha fiitooga leh iyo wadamada hore u maray iminka waxay u eg tahay inay boggaa laabtay kadib markii dhabarka loo jeediyey. Somaliland inay tiigsato Maraykanka islamarkaana u hayaanto Ruushka iyo guuraha ay ku tagto midowda Yurub waxay ku bedeshay inay boodhka ka jafto dalalka ugu saboolsan qaaradda Afrika iyo wadamo aanay ka talin kelitaliyayaal gaamuray oo ay u aragto inaanay nafgelin doonin maadaama diktaatarada qaaradda Afrika qaarkood qaldhabayaan halka duul kalena dhuun yeedhinayaan. Somaliland waxay qaaday hayaan diblomaasi oo ay ku dul fadhiisanayso 54 dal ee qaaradda guduudan waxayna kuraalaysaa 4 dal ee ku amarku taagleeya qaaradda kuwaasi oo kala ah Masar, Nigeria, Ethiopia iyo South Africa. haddaba sidee ayay 4 waddan u hogaamiyaan qaaradda Afrika ayaa laga yaabaa inaad daawada isweydiiso. qaaradda Afrika waxay u qaybsantaa 4 jiho oo kala Afrikada bari oo ay burtuur u tahay Ethiopia, Afrikada waqooyi oo ay ku horkaadido dowladda isu taqaano hooyada dunida ee Masaarida, Afrikada galbeed oo ay iyadana dambaabto Nigeria iyo Afrikada koonfureed oo ay horjooga u tahay South Africa. waxay u eg tahay haddii 40 waddan kula joogaan inaad gacanta ku hayso dhammaan dalalka qaaradda maadaama gobol kasta leeyahay urur goboleed u gaara sida ururka ay ku mudoobeen Afrikada galbeed ee loo yaqaano ECMAC oo xaruntiisu tahay Lagos, halka Afrikada barina ay leedahay urur goboleedka IGAD oo xaruntiisu tahay Addis Ababa. sidoo kale dalalka koonfurta qaaradda waxa ay ku midaysan yihiin ururka SADC ee horumarinta dhaqaalaha ee dalalka koonfureed ee Afrika, waxaana ugu dambeeya urur goboleedka ay ku midaysan yihiin dalalka waqooyiga Afrika kuwaasi oo loo soo gaabiyo African Maghreb Union loona soo gaabiyo AMU. dhammaan madaxda iyo xubno matalaya dalalkan aynu soo sheegnay ayaa si way tabaaqa u soo gaadhiyay Hargeysa oo caasimadda jamhuuriyaddan xamar ka xanaaqda Addis Ababana sacabka u garaacda. waxaa duddada u ah Ethiopia oo aan ka qoob qaadin Hargeysa islamarkaana ay dowladdaasi calanka u sido urur goboleedka IGAD. waxaa sidoo kale sanadkii 2019 shantii bishii May soo gaadhay magaalada Hargeysa madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Baba Olusegun Obasanjo, kaasi oo uu madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha Somaliland, halka ay 2 maalmood kadib 7 bishii May 2019 ay Hargeysa soo gaadheen diblomaasiyiin iyo saraakiil military oo uu hogaaminayo wasiir xigeenka arrimaha dibadda dalka Masar, kuwaasi oo Somaliland ka dalbaday inay ka yegleeshaan saldhig military oo kaabiga badda Casa si ay u qooraasato biyo xidheenka Ethiopia ka dhisanayso Niil ee Chad, waxaana taasi sas qaadsiisay xabashida oo la jaara Hargeysa. ugu dambeyn daawade waxaa 21 Disembar 2020 cagta soo geliyay Hargeysa islamarkaana la xos ku ah Somaliland wafdi ka socda xisbiga haya talada South Africa ee loo yaqaan ANC tiyo maalin uga soo horeeyay Somaliland wasiirka arrimaha